baarlamanka 14 haddii koonfur galbeed ay ka maqan tahay baarlaman federaala lama dhaarinayo waxaa la dhaarinayaa dawlado iskaashaday 4 dawlad goboleed baarlamankiisa la dhaarinayaa because baarlamanka federaalka wuxuu ka koobmaa federal member stateska xubnahoodu ka koobmaa shirkan saxaafadeed wuxuu ku saabsan yahay aragtidayda ku aadan xal u helidda khilaafka soo kala dhexgalay ra'iisul wasaaraha iyo dawlad goboleedka koonfur galbeed markuu ugu horeysa waxaan u hambaliyeynayaa dhammaan dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka dhammaystirka xildhibaanada baarlamanka federaalka waxaan kaloo rajaynaynaa in ay ku guuleystaan inta dhiman inay dhammaystiraan waxaan rabaa arrinta koonfur galbeed ku saabsan waxay la tahay koonfur galbeed 5tii bishii abriil waxay soo qortay warqad ama qoraal ay kaga hadlayso khilaafka kala dhexeeya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan rabaa marka hore dib in loo xasuusto dawlad goboleedka koonfur galbeed doorkii ay ku lahayd khilaafyada dhici jiray muddadii doorashada dadban ay socotay runtii dawlad goboleedka koonfur galbeed waxay ahayd mar walba waxay u taagneyd sidii wixii caqabada ay yimaada xal loogu heli lahaa khaasatan madaxweyne cabdicasiis wuxuu ahaa hormuud ka ahaa mar walba xal u helidda khilaafaadkaas in mar walba hore loo dhaqaajiyo doorashada si ay u hergisho maanta haddii ay timid in laga hadlo doorashada dadban dawlad goboleedyadii dhammaan si isku mid ah ayay u qabteen yani habraac isku mid ah ayay ku qabteen haddii ay saxan yihiin way wada saxan yihiin haddii ay qaldan yihiin way wada qaldan yihiin runtii waxaa muhiim ah koonfur galbeed waxay leedahay xuquuq la mid ah midda ay leeyihiin dawlad goboleedyada kale waxaa saaran waajibaad mid ka saaran dawlad goboleedyada kale la mid ah kama duwana dawlad goboleedyada kale waxay kaga duwan tahay malaha sidaa daraaddeed maadaama ay caddaysay in khilaaf uu kala dhexeeyo ra'iisul wasaaraha waxaa waajib ku ahaa in uu u dhaqaaqo sida uu u qancin lahaa dawlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaa kaloo jira baarlamanka federaalka haddii hal dawlad goboleed ay ka maqan tahay ma lagu tilmaami karo baarlaman federaal inuu yahay sidaa daraaddeed waajibay ku tahay in uu raadiyo dawlad goboleedka uuna qanciyo maadaama ayna jirin sida ku cad qodobka 51 ee dastuurka ku meel gaarka ah sharci xeerinaya guddiyo ama habraacyo haddii khilaaf uu dhaco khilaafkaas oo u dhaxeeya dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ama dawlad goboleedyada dhexdooda aanan weli baarlamanka uusan samayn asagay waajib ku tahay inuu u dhaqaaqo oo xal uu raadiyo qodobka ugu muhiimsan shaqo badanaa la soo qabtay doorashada maanta waxay maraysaa heer gebagabay maraysaa shacabka Soomaaliyeed way ku daaleen dib u dhac badan oo doorashadan ku yimid waxaan u malaynayaa dib u dhac kale uma dul qaadanayaan waa la socotaan xilliga hadda lagu jiro waa xilli abaari ay jirto xilli meel walbo caalamka ka mid ah azma ay ka taagan tahay doorashadan inay dhamaato la soo gebagabeeyo muddadii loo qabtay baarlamankan in la dhaariyo 14 ay noqoto muddada qof walba wixii qaldana lagu sixi karo wixii saxan hore loo dhaqaajin karo waxaan aaminsanahay in dawlad goboleedyada ama madasha mas'uuliyad iska saaraan arrintan ku wajahan arrintan khilaafka dhalisay oo ah dawlad goboleedka koonfur galbeed iyo ra'iisul wasaaraha oo ah doorashada ku saabsan arrinkaas inay tabashada
south west ay qabto ay u istaagaan ayna xalliyaan sidii markii hore south west ay samayn jirtay oo ay u xallin jirtay wixii khilaafaad oo dhaca dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa guul waxaan rajaynaynaa dhammaan dowlad goboleedyada inay u arkaan south west Cabdicasiis Laftagareen oo hore saaxiibkooda u ahaa in maanta ay u arkaan in ninkii hore uu yahay sida uu u shaqayn jirayna aan ku celceliyo ay ula shaqeeyaan aad iyo aad u mahadsantihiin horta guddiga saa la socotaan asaga laftiisa khilaafa hareeyay waxaan idin sheegayaa marka ugu horeysa doorasho marka laga hadlayo doorasho guddi waxaa xiga waa madax banaani guddigan wuxuu la mid yahay guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka ee dastuuriga ah oo xilli gaar ah loogu talagalay doorasho dadban inuu qabto waxaa qaldan institutionada mid ka mid ah ha noqdo xafiiska ra'iisul wasaaraha institution kale ha noqdee inuu farageliyo ayaa qaldan guddiga waa guddi madax banaan laakiin awalba waxaa wax lagu dhisay wada ogolaa wax lagu dhisay ama consensusa wax lagu dhisay doorashada hadda la qabtay ma aha doorasho toosan waa doorasho dadban oo waxeedii oo dhan heshiis ay ku salaysan yihiin maadaama guddiyada laftooda marka la magacaabayay qof keliya uusan magacaabin oo ay ahayd wada ogol lagu magacaabay qaar isteedyada ay ka yimaadeen qaar federaalka ay ka yimaadeen qof keliya inuu go'aan ka gaaro oo xilal ka qaado waxay ila tahay taasi waxay ka hor imaanaysaa madax banaanida guddiga marka meeshaan wax saxan ma jiraan keliya waxay u baahan tahay in la wada fariisto inta hartay wax yar waaye la wada dhammaystiro laakiin haddaan dib ugu noqonno oo yaa saxan iyo yaa qaldan haddaan dhahno hadda waxay noqonayaan wax oo dhan dee wax qaldanay isla noqonayaan ma kula tahay in la dhaari karo baarlamaanka 14 abriil ee lagu ballamay iyadoo koonfur galbeed iyo sida aad sheegayso xafiiska ra'iisul wasaaraha uu khilaaf ka dhex ogeeyay baarlamaanka 14 haddii koonfur galbeed ay ka maqan tahay baarlamaan federaala lama dhaarinayo waxaa la dhaarinayaa dowlado iskaashaday 3-4 dowlad goboleed baarlamaankiisa la dhaarinayaa because baarlamaanka federaalka wuxuu ka koobmaa federal member stateska xubnahoodu ka koobmaa marka baarlamaanka federaalka waa in la dhaariyaa 14 jadwalkii ay u qabteen guddiga taas macnaheed waxaa waaye wixii khilaafaada jira awalba waxaa lagu xallin jiray inay wada fariistaan ay xallin jireen khilaafaadka in la xalliyo 14 doorashada ay qabsoonto macnaheed haddii 14 la gaaro oo south west ay ka maqan tahay taas macnaheed waxaa waaye baarlamaan federaal meesha ma yaal